بسم الله الرحمن الرحيم. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa rag naaga isdhaafshay waana runtii ninka qaba xaaska fiican oo xilkaska ah wuu ka dheereeyaa ragga kale dhinac walba ha ahaato xagga ganacsiga wax soo saarka caafimaadka. Mahmaahdani waa mahmaah caalami ah oo adduunyadoo dhan la isku wada raacsan yahay. Markay xaaskaaga bilaa shuruud ay ku garab istaagan tahay waxay ka dhigaysaa adigoo dhan libaax. Markii aad fiiriso nabigeena Allahumma salli wa sallim alayhi, Khadiija aad ayuu amaani jiray, mar walba afkiisa wuxuu ku hayay sida bilaa shuruudda ah ay ugu hagar baxday oo hiil iyo hooba ay ku taageertay markii ay ugu dhibaatada badneed ee ku noolaa Makka al-Mukarrama. Runtii ninkaago aad garab istaagto uma baahna tacab weyn, yacni hadal oo macaan aad tiraahdo kaliya ku filan. Sida waxaa jirtay nin asagoo shaqada aadaya oo gaarigiisa furanaya ayaa xaaskiisa ku tiri, beddelkaaga lama helaye ee baabuurka si taxadar leh u wad. Ninkii hadalkaas macaanka markuu maqlay wuxuu yiri, hadalkaas yar ayaa waxay ugu filnaa muddo sanad ah ayay waxay ii ahayd uu yiri dhiirgelin. Marka waxaa kaloo muhiim ah ninkaaga inaad tusto inuu yahay hogaamiyaha guriga. Hogaanka ninkaaga Ilaah baa u dhiibay, adigana ogolaanshahaaga ogolaanaysid inuu ninkaaga hogaamiyo guriga waxay u dhigantaa adoo tiri, Ilaahow waa ku maqlay waana ku adeecay. Taasna Ilaahay aad ayuu ugu farxayaa. Runtii markii ninka fursad loo siiyo inuu hogaanka qabto ee xaaska fursad siiso, runtii waxaa hubaala inuu si fiican u hogaaminayo. Soomaalina waxay tiraahdaa dooni laba naaquuda leh way jabtaa. taa micnaheedu ma aha inaad gacmaha kor u taagto aad taladaada dhiibanin oo aad shub iska tiraahda, ma aha. Taladaada waa dhiibanaysaa, hab fakarkaaga waa dhiibanaysaa, laakiin waxaa leedahay taladeeda waa kana, go'aanka laakiin adiga iska leh. kelimadaas go'aanka adiga iska leh ninkaaga waxay gelinaysaa khiirad oo waa dhaqaajinaysaa, waxayna u badan tahay 90% inuu taladaadi raaco farxad awgeed. Laakiin haddii aad ku khasabto go'aankaaga oo aad go'aankaaga ku gacan adeegto, xitaa hadduu ka aqbalo waxaa dhici karto inuu kalgaceelkii uu ku qabay iyo wixii oo dhan inuu aad u dabco, isaga faraqaado maamulka oo dhan. Xataa waxaa dhici karta qaar ka mid ah ragga inay muran galaan oo gurigii oo dhan uu holac dhaco oo ay caruurtii oo dhan saameyso. Marka waxaa habboon sidoo kalena ninka ragga ah hogaanka alle u dhiibay waa inuu sidii laga rabay ugu soo baxaa, uusan naqan raggii uu Abwaan Xadraawi ku magacaabay rag siyaasi wada noqay oo maqaayadda inta fadhiisto oo mar walba siyaasad iyo emotional la dhiibay iyo waxaas ku mashquulsan oo aan gurigiisa war u hayn. Taas waa hogaan xumo. Hogaamiyaha dhabta ah waa kan u adeega reerkiisa, dulqaad badan oo naxariis badan, lana tashada xaaskiisa. Sidoo kale waxaa jirtay khubarada ku takhasusa dhaqaalaha inay ogaadeen markii ay haweenka ama xaasaska ay dhiirigelinayaan raggoodii iyo caruurtoodii waxay saameyn weyn ku yeelataa dhaqaalaha waddanka. Ninka qoray horumarka dhaqaale ee ay gaareen wadamada ku yaal bariga Aasiya ayaa wuxuu yiri haweenka bariga Aasiya qayb weyn ayay ka qaateen horumarinta dhaqaalaha, ayaga ugu wacnaa oo soo saaray jiilkii oo yacni dhaqaalahan iyo tiirkan waddanka dhaqaalaha uu ku taagayaan kor u qaaday. Haweenkoodii ayaa soo saaray. Runtiina markaa fiiriso ganacsatada Asiyaanka ah waa ka adkaysi badan yihiin ganacsatada Afrikaanka, waa ka ganacsatada Afrikaanka ama ganacsatada Soomaalida xoogaa waxaa moodaa inay salfudeed yihiin. Runtii waxaa hubaal ah haddii haweenka Soomaaliyeed ay xil iska saaraan, ay u hagar baxaan raggoodii iyo caruurtoodii, waxaa hubaal ah Soomaaliyana inay noqon doonto muddo 25 sano gudahood
meeshii qaaradda mugdiga ahayd oo iftiinkeedii laga qaadan lahaa inay noqoto hadduu ilaahay yiraahdo. Soomaaliya runtii waxay ku jirtaa marxalad oo dib u dhis ah, waxayna u baahan tahay dadaal wadareed oo rag iyo dumar iyo caruur isgacan qabtaan si uu waddankan dib ugu soo laabto. Daawadayaal, markaa fiiriso qaaraddan Afrika, dad badan ayaa u soo tashtay oo raba inay khararamsadaan. Sida kaliya looga bixi karana waxa waaye in qarannimadii la soo celiyo. Marka aa fiirisana waddanka Soomaaliya waa cadka ugu fiican qaaradda Afrika, oona si sahal loogu cuni karo maadaama ay dowlad xoog lahayn ay jirin. Marka waxaan idin leeyahay maandeeqyada guryaha jooga oo ah habeenka Soomaaliyeed, maandeeqdii maanta waa idinka. Fadlan maankiina ku deeqa raggiina iyo caruurtiina si hashi maandeeq loo maasho. insha allahu tacaala khayr ayaan idin dhaafay. waxaan rajaynaa inaan barnaamijka aan ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo gudbiyey Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubiriday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. fadlan isdiiwaangeli si uu si toosa kuu soo gaaro barnaamijyadan oo kale. sidoo kale u gudbi saaxiibadaada si ay ugu faa'iidaystaan oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed khibrad weyn ugu qaataan insha allahu tacaala. mahadsanidin. jazaakum allahu khayran. ramadaan kariim.